Maamulka iyo shacabka xaafada kulmis oo ka mid ah xaafadaha magaalada jowhar ee caasimadda dowlad goboleedka Hirshabelle ayaa maalmahan waxa ay wadeen olole nadaafadeed oo loogu talagalay ka qayb qaadashada bilic soo celinta xaafada kulmis walow aynu ku guda jirno xilli sanadeedka gu'ga oo dadkuna ay wada sugayaan da'ida raxmadda Alle. qaar ka mid ah shacabka xaafada kulmis oo la hadlay TV-ga Hirshabelle ayaa waxa ay sheegeen in ay aad ugu faraxsan yihiin hawlaha nadaafadeed ee laga hirgeliyay xaafadooda. shalay jidkan dhammal mari karin waa go'naa. shalay baldoosa la keenay jidkiya dib loo furay. eewlor biya waa ku xabisnaayeen gaadiidka waa ku xabisnaay. hadeerna kale shalay baldoos la keenay la hagaaji. hadda okay waa dadweynaha dhan waa ku faraxsan yihiin. gudoomiyaha guuleystay arintiisa shaqada shalay oo gudoomiyaha xaafada kulmis oo qabtay waa ku faraxsanahay si aad iyo aad ma sha Allah weena wanaagsan tahay xaafada wax laga qabtay shaqada la qabtay waxay tahay xaafada ibel biyo ka bixi jirin laakiin shalay cagaf waxa la keenay baldoos ma sha Allah haddana way noo fiican tahay way wanaagsan tahay. Yahya Xasan Sheekh oo ah gudoomiyaha xaafada kulmis ee degmada jowhar ayaa ka warbixinaya hawlaha nadaafadeed ee maalmahanba ay ka wadeen xaafada kulmis asigoona sheegay in isku duubni shacab iyo ka gacansiin hay'adda Samsam ay ku suurta gashay in wadooyinka waaweyn ee mara xaafada kulmis laga saaro ciidda iyo dhagxaanta dhextiilay wadada kuwaas oo saameyn ku yeelan lahaa marista biyaha roobka. shalay waxaan qabanay nadaafadii ugu horeysay xaafada kulmis oo ay la qabteen odayaasha dhaqanka xaafada kulmis dhalinyarada haweenka iyo culimada diinka markaan xilliyadii hore waxaan sameey jirnay markii roobku uu soo dhawaado in aan farfarooyin aan soo qodno shalay 5 saac ayaan ka helnay Samsam ay odayaashayga ii soo dhameeyeen 2 saac ku darsoontana anaga iyo odayaashayna qaybsanay in aan magaalada markuu roob da'o haddana sanadkan waxaa jirto wixii baabuur ah ee carra magaalada si baan u soo dhigtay wadooyinka carrada la dhigi iyo oo si fiican loo buuri wadooyinkan soo bixin far weyn oo adiga arki doontaan haddana aad u jeedaan meesha aan taagnahay waa iska waa ay biyaha isku yimaadaan ee aan matoor ka saarno aan kanaal ku shubno marka waxaan ku dadaalnaa sida barakac ay ku dhicin oo Ilaah baa ma hadda leh wax walba xaq Ilaah bay ka qoran tahay in aan dadkii markuu roobka yimaado barwaaqada did Ilaahay iska badiyo in aan dadkii ka soo biyihii aan ka soo saarno sida maatooyinka carruurta iyo haweenka sida aan barakac u ilaalino waxaan baa ku jeedinayaa in xaafadaha kalena ay nagu daysadaan sidaan anaga wax u qabsanay waxaan jecelnahay in sida hadda isu xilqaamay si ka sii weyn aan sii wadno anagoo jecel hadda in maxadii ka soo qabo laamigo kale waxa ku yaalo jaranjarooyin oo hadda dudumay in aan dayactir ku sameeyno in aan wabiga carbur yar ku sameeyno meelaha oo aan siimonka ognahay waxyaalo badan qabanaan jecelnahay isbuucyada soo socda intaan soonka la gaarin ka hor. hadalka gudoomiyaha xaafada kulmis ee degmada jowhar Yahya Xasan Sheekh iyo waxqabadkiisuba ayaa waxa markaa ay ku soo beegmaysaa xili dhawaan uu duqa degmada jowhar Saalax Muudi ugu baaqay bulshada qaybaheeda kala duwan in dhammaan bulshadu ay ka qayb qaataan bilic soo celinta caasimadda dowlad goboleedka Hirshabelle ee jowhar. Ali Tali Cabdi, Hirshabelle TV, jowhar.